موضوع maanta aynu ka hadli doonaa waa inaan soonku ahayn inaad ka soonto cuntada iyo cabitaanka oo kaliya taala laakiin soontu inta ay ka sii macna balaaran tahay oo inay tahay inaad ka soonto indhahaaga inaad ka soonto dhegahaaga inaad ka soonto afkaaga inaad ka soonto gacmahaaga iyo lugahaaga iyo dhammaan xubnahaaga kala dhammaystiran inaad ka tagto dhammaan wax walba oo laqwi ah amba xumaan ah inaad ka tagto aanad waqtigaaga oo dhammaystiran aad ku buuxiso ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad raali geliso xadhiga ilaahay inaad qabsato waqtigaaga oo dhammaystiran aad ku buuxiso cibaadooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad ku camiiqto si bisha Ramadaan aad uga qoomamayn aad uga mid noqon kii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam iyo malaku Jibriil ay yiraahdeen malaku Jibriil waa Nabi Maxamed oo yimi sallallahu alayhi wa sallam Nabi Maxamed oo saaran waxa minbarka wuxuu ku yiri آمين آمين نبي محمد وده نبي محمد بايد آمين 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 وحكودي ملك جبريل أيه وحورنا يا هباكا آمين وحورنا يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ملائكة ملكي وجو خير كبدنا أيه وحن هباك تمايا آمين وحورنا يا ومخلوقات كوحن نبي نبي هذا وجو خير كبدنا أيه ورنا آمين وحي صحابة يقول هذا نبي محمد آمين محاضر تري wuxuu ku yiri Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam malaku Jibriil baa yimi wuxuu yiri qofka bisha Ramadaan ay u soo gasho ee aanan ka faa'iideysan laqwi iyo xumaan waxa ay ku dhaafto waxa Ilaahay ahoojiyo adduunyo iyo aakhiraba aamiin aamiin ayuu waxa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam qofka labadiisa waalid ay nool yihiin ee waxa weeye aanan ka barakaysan amba waxa weeye aanan ka faa'iideysan waxa Ilaahay ahoojiyo aamiin aamiin ayuu waxa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam حديث كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيقول ليس الصيام عن طعام والشراب إنما الصيام عن اللغو والإثم وصمت معها إن تكسرت وكلية ثلاثة هذا وحبنا معنا وحبنا مع بايو وأنا صامنانيا لندوبا عياريا تغبا عياريا وقت اللهم إسبان سمينيا وانهرتيا إنت مدنا صامت رسمي جاهي معها إلى هاي ومباهي قبا inaad gaajooto iyo inaad haraado labada midnaba laakiin Ilaahay wuxuu u baahan yahay waa cibaadadaada iyo amalkaaga saalixa ah ee aad ku galayso jannada Rabbiga subhanahu wa ta'ala taas oo u baahan inaad waqtigaaga oo dhameystiran aad ku buuxiso wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali gelinaya waqtigaaga dhameystiran inaad geliso Ilaahay subhanahu wa ta'ala xadhigiisa waxa wixii aad ku qabsanayso oo noqonaya salaad waxaan shanta salaadood ee waajibka ah inaad waqtiyadooda inaad ku tukato salaadaha sunnaha ah inaad ilaaliso sadaqada inaad bixiso dadka agoonta ah inaad caawiso dadka waxaan jilicsan inaad wax aad siiso waxa weeyaan waxay ku afuraan ama waxay ku suxuurtaan inaad caawiso dadka kale walaalada ah ee waxaan sooman taas sababteedu ay tahay inaad cilmiga ka faa'iideysato halqadaha waqtigaaga dhameystiran inaad geliso wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali gelinaya وهذا الصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لح بلاد وحي أورن شغين إلهي وحد نجا أقبشا بشه رمضان أعمال صالحة إن عن صميني إلهي نجا أقبل لح بلاد بيكوع علن شغين هبيني معلم با لح ذا بلاد كحجنا وحي كوع علن شغين إلهي وحد نسوق أرسيسا أنا جا عافمات قبنا أو وحنا كانسي وقتي أنا جا هيسنا إلهي وحد ناكنتا بشه رمضان si aan uga faa'iideysano oo amal janno noo gooya si aan u shaqeysano